inkastoo aanay ilaa hadda soo bixin natiijada rasmiga ah ee doorashadii shalayto ka dhacay dalka Jarmalka oo ay ku tartamayeen in ka badan 3 xisbi, balse ra'yi ururin la sameeyay ayaa tilmaamaysa in uu ugu horeeyo xisbiga dimuqraadiga wadaaga ee uu hogaaminayo ninka lagu magacaabo Olaf Scholz, kaasi oo hore u soo noqday wasiirka maaliyadda iyo ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka dalkaasi. Olaf Scholz oo markii la shaaciyay ra'yi ururinta la sameeyay la hadlay taageerayaashiisa ayaa sheegay inuu xisbigu yahay mid ka mid ah xisbiyada ugu muhiimsan isla mar ahaantaasina ay garanayaan shaqada ay qabanayaan, isagoo sidoo kale axsaabta kale u diray fariin ah inuu xisbigiisu go'aaminayo cidda la soo dhisaysa xukuumadda wadaaga maadaama aanay suurtagal ahayn inuu hal xisbi soo dhiso xukuumad kaligiya. Dhanka kale, Elina Bonteg oo xigaha ku jira kaalinta saddexaad oo ay u dhaxayso ra'iisul wasaaraha 16 sano xilka soo hayay Angela Merkel ayaa iyadna ku jirta kaalinta saddexaad. Gabadhani oo u dhalay aasaasaha xisbiga akhtarka ayaa musharaxa xisbigan uu sharaxan iyadoo la rajeynayay in yeesho sida ay qeexayso ra'yi ururinta la sameeyay in ka badan 100 kursi oo ka mid ah kuraasta baarlamaanka dalkaasi, taasi oo sida loogu talagalay haddii ay u dhacdo u suurtagelinaysa inay ka mid noqoto xubnaha soo dhisi kara xukuumad wadaaga oo ay kala qayb geli karto Mr. Scholz. Balse Angela Merkel ayaa khasaaraha soo gaadhay uu ahaa mid aan la filaynin inkasta oo ay dalkaasi taladiisa soo haysay muddo 16 sannadood ah, taasi oo la soo shaqeysay madax kala duwan oo ka tirsan qaaradda Yurub. Mrs. Merkel ayaa dalka Jarmalka gaarsiisay mid ka mid ah dalalka ugu waaweyn dhinaca dhaqaalaha marka la eego caalamka, iyadoo ka dhigtay dalka koowaad ee dhaqaalaha ugu horeeya qaaradda Yurub. sidoo kale waxa ay ka mid ahayd shakhsiyaadka dhifta ee aqbalay in ay qaataan qaxoontiga ku soo qulqulaya dalka Yurub. inkastoo ay Faransiiska dhowr qadiyadood isaga hor yimaadeen, balse haddana waxa ay la soo shaqaysay madaxweynayaal kala duwan oo ugu horeeyay Jacques Chirac iyo sidoo kale Nicolas Sarkozy, François Hollande iyo Emmanuel Macron oo hadda talada dalkaasi haya. Mrs. Merkel ayaa xisbigeedu aanu filaynin guuldarada ku timi, laakiin waxa la sugayaa natiijada rasmiga ah ee ugu dambeynta ay shaacin doonaan guddida doorashooyinka dalka Jarmalka. inkasta oo natiijooyinka Jarmalku ay qaataan waqti dheer, sida marka la eego doorashadii tan ka horeysay oo qaadatay in ka badan bil, balse saadaashu waxa ay tilmaamaysaa in Mr. Scholz ugu horeeyo isagoo haysta 26 boqolkiiba. inkastoo Mrs. Merkel xisbigeedu ku jira darajada labaad, xisbigeeda oo ah xisbiga Kristanka midigta dhexe ee dimuqraadiga ah ayaa waxa ay raay ururintu sheegaysaa inay haysato boqolkiiba 24.2. xisbiyada kale ee tartanka ku jira ayaa waxa ka mid ah xisbiga midigta fog oo ku jira kaalinta afraad iyo sidoo kale xisbiga bidixda fog oo ku jira kaalinta shanaad, halka xisbiga xadjirka ee cadaanku ku jira kaalinta 7. balse qaaradda Yurub ayaa eegaysa cidda ku guuleysan karta doorashada dalka Jarmalka iyadoo uga duwan doorashooyinkii tan ka horeysay, maadaama oo Merkel xisbigeedu la kulmay khasaare aanu filaynin.